waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya gabadha tan malikatu saba markii uu timi warqaddii nebi sulaymaan innahu min sulaymaan innahu bismi illaahi araxmaani araxiim anlaa tacluu calay waatunii muslimiin waraaqday ku qoray ha kibrina idinkoo muslima ii kaalaya gabadha tani waxay ka fakertay bal siday ula dhaqmi lahayd dabeetana waxay la tashatay dadkii talaqabeenka iyada u ahaa qoladii talaqabeenka u ahayd waxay idhaahdeen waanu xoog weynay cid walbana waanu iska celin karnaa arrintana adaanu kuu daynay go'aanka gaadh islaan caqli badan bay ahayd oo go'aan bay gaadhay ah bal inay itixaanto sulaymaan inuu nin wax islaaxinaya yahay iyo nin adduunyo doona inuu yahay adduunyo doonku bay tidhi ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha dillah wakadalika yafcaluun marka waxaan tasgaraynaa bay leedahay waxaan itixaamaynaa bal mowqifku hunguriga ka taagan yahay waxay tidhi adduun baynu u diraynaa innii mursilatun bihadiya fanaadiratun bima yarjicu almursaluun bay tidhi hadiyad baan u dirayaa xoolo waxaan eegayaa bal xoolaha wuxuu kaga soo jawaabo ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay falamaa jaa'a sulaymaanu qaal atumidduunanii bimaal famaa aataaniya allahu khayru mima aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun xoolihii markii loo keenay nebi sulaymaan wuxuu yidhi ma xoola ay i keenteen oo hadiyaddiinnan iyo waxan baa la timaadeen waxaa laysiiyey baa ka fadli badan waxa kan idinkuna waxoogaagan adduunka iyo hadiyaddaa ku faraxsantiin waxay tilmaamaysaa inaanu mansabka xoole ku doonaynin iminka waxaa laga yaabaa inaad aragto siyaasiyiinta mansabka doonaysoo dhami waxa uu raadcaynayaa inay tahay tse business suu lacag uga samayn lahaa ama reerkoodu siduu reeraha kale u boobi lahaa ama sidii uu wax loo qaadi lahaa wuxuu waa business afgobaadsigaa la yidhaahdaa ummadda horumarkeedaanu doonaynaa iyo midnimadeeda iyo kani waa sheeko waa business uu doonayo inuu waxna boobo waxna dhaco waxna helo lacagna u qaato amaa tan qur-aanku uu ka warramay waxa ay tilmaamaysaa inaanay rabin adduun waxay madaxnimada u hayeenna inaanay adduun ku qaadanaynin waxaa qisada nebi sulaymaan ka mid ah oo rabbi subxaanaه wa tacaala uu ka warramaya nebi sulaymaan oo u baahday carshigii balqiis in la soo qaado dabeetana koox hortiisa joogta ay ishayso cifriit min aljin uu leeyahay intaanad meesha ka kicin saacadka shaqada inta aad ku jirto baan keenayaa carshiga rabbi subxaanaه wa tacaala cifriidkaa jinka ah mid ka xoog badan baa laga warramay kaasi wuxuu leeyahay working hourska saacadaha shaqada gudahooda intaad shaqada ku jirto ee aanad ka kicin xafiiskaaga baan keenaya laakiin ilaahay wuxuu yidhi waqaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka طarfuk kii cilmiga kitaabka la siiyey ayaa wuxuu yidhi anigu waxaan keenayaa ilbidhiqsi in leeg kow kan lama sheegin ma jinba ma insiba ma malagba waa noocma waxaa lagu tilmaamay sifo sheegisteedu ay ku filantahay isaga sheegistiisa waxaa lagu sifeeyey inuu yahay alladii cindahu cilmun min alkitaab aqoon-yahan baa lagu tilmaamay waa aqoon-yahan kitaabka yaqaanay baa wuxuu yidhi aqoon-yahankani inuu malagii inuu jin yahay iyo inuu cid kale yahay ilaahay kama warramin laakiin waxaa laynoo sifeeyey inuu aqoon ahayd waxaanu wax ku keenayay aqoontan wakhtigaa taagnayd ee nebi sulaymaan iyo ciidamadiisana la siiyey waa aqoon aan maanta dunida oolin waayo sariir boqortooyo in saba oo yaman ku taalla laga qaado oo la geeyo falastiin oo nebi sulaymaan degganaa oo lagu geeyo elbidhiqsi aqoonta bini aadamka iminka wuxuun bay awooddaa only mala haddii loo diri lahaa asa signal qoladiinnii kombyuutarradii iyo telefoonnadii waxaan ka warrami jirtay yacnii asa signal haddii inta carshiga la dhalaaliyo signal laga dhigo oo la sandgareeyo dabeetana within milliseconds dhanka kale receiverku uu qabto dabeetana dib loo amaamudoo la shaaciyo that's the only technology maanta mala suurtagal ahaan lahaa in ay samayn karto
لكن ربي وحط المامية سبحانه وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وحن كينيا إذا ماشى وحلت المامي وقت يكون كينيا هي علمه نوها وقيل لي إنه مشيقين لكن وحلا إنه شيء وحا كدم بياينه يهي محي أقون قصة النبي سليمان وحا كلو كم موقته هذا إنه ليه أقون تقنية نوي كم موقته فرسمه تكنولوجي وهي قبل دي مركز سو إسلامتي نبي سليمان وحو يكوح ديسي وحي أمرين للسمايو صرح ممرد من قوارير بسم للسمايي قرارات بالصاري waxay oranayeen biyaha hoosta laga mariyay qaab bay dhalada tani u samaysanayd aanad dhalanimadeeda arkaynin ee biyaha quri ku muuqanaya dabeetana qofka dul maraya qofka markuu ma soo bilaabo wuxuu soo dhaayay biyaad maraysa ay ka faydo ilaa biyo arkaaye dhaladu waa transparent aan muuqanayn marka biyaha markuu sidaahda dhaxmar qofku uu faydanaya boqoradii waxa la yiri qila la hadkhul sarh na halkan mar baa lagu yiri فلما رأته حسبته اللجة وكشفت عن ساقيها بإلهي مركي أي ماشى سو مرتي وحي ليسي مال قضان ودبي كتشران دبتنا دمدي فايدتي قال إنه صرح ممرد من قوارير وحلقو يري وعد اسمه ممرد ممرد يعني وحويا أمرد لقدي سبعة very smooth corrugation aan lahayn qoladii farsamadu bahashii ay saar jireen marka la saaro waxa wii waa dhismaanu ka muuqanayn siman oo min qawaariir ka samaysan baa leeyahay quraarada ka samaysan idan waa technology muujinaya biyihii inaad garan karin meeshu inay biyaha rasmiya yihiin iyo inay dhalatahay aad garan karaynin quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa nabi daawud كو آيات واكين حق هرق صامرين علم لسيه ولقد آتينا داود وسليمان علما تقنية مركا لغا ورمي القرآن كوحك ورمي محي وآلنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وآلنا له الحديد وحن أتشل عنيبا إلى هي حديدك آيرانك دبتنا waxa lagu yiraahdaa ni'mal saabiqaatin wa qaddir fi sard waxaad samaysaa duruucin saabiqaat qalabkan lagu dagaal galo ee seefta iyo waxa kan celinaya oo qaddir fi sard xalaqeedana waxay yiraahdaan nabi daawud farsamadii ugu horeysay bagriga hore waxa la qaadan jiray bir isku taxan laakiin birta in laga dhigo xalaqaad yar yar circles yar oo la soo sursuro oo silsilada yar yar laga dhigo silsilada aan warankiyo seeftu toona gali karin laakiin jirkoo dhanna lagu qarin karo silsilada inay noqotaa waxay samaynaysaa flexibility jirku wuxuu helayaa inuu ilaa wuxuu waa silsilada way kala dhaqaaqaysaa inuu dhaqdhaqaaqo oo qofku dagaalkii si fiican uu gali karo waxay kaloo samaynaysaa inaanu soo galinna maxay bahalkii waxay kaloo samaynaysaa inay fududaato oo birtoo dhamay hadday malaasanaan lahayd dee meelahan daldaloo dhan wasni baa hadhay miisaankii badh baa lumaya idan waa technology cusub oo technologygii markaa yaallay ka gedisan oo hadday tahay fudayd hadday tahay costkoo ka yaraanaya kii hore qiimahoo yaraanaya hadday tahay flexibilitygeeda iyo siduu qofku u dhaqdhaqaaqi karayo tiro badanaysa farsamo cusub buu sameeyey sideedabana adduunkana maanta aragtaan wuxuu horumaro qura markii la gartay xadiidka qaabka loola dhaqmo technologygan cusub ee arkaysaan dhammaantii wuxuu horumaray markii la bartay xadiidka iyo sida loola dhaqmo birta in la tumi karo aanay jabinna 19th century-gii bay dunidu bilowday productionkeedan tirada badan leh birta in la adkayn karo ama steel laga dhigi karo ama noocan kale laga dhigi karo ama maadooyinka kale lagu qasay iyo noociyaadkeeda industry-ga dunidu markuu bilaabay inuu birtaasi samayn karo qaybii ugu horeeyay taariikhda sayniska taariikhdiisa hadda dib ugu noqoto ingiriiska markii ugu horeysay birahan yar uu sameynayay Swedishku ka soo qaateen tijaabo yar oo aad u liidatay ahaayeen
laakiin tijaabooyinkaasi wakhtigay guusha gaadheen baa industriga weyni bilaabma waayo industrigu dhammaantii hadday hubtay hadday wax kala tay everything bir buu ku xidhan yahay birta in lala tacaamuli karaa waxay sheegaysaa inay tahay technologyga asalka uu ka intilaaqo ilaahay subxaana wa tacaala nebi sulaymaan wuxuu tilmaamayaa waalanaa lahu nebi daawuud waalanaa lahu alxadiid nebi sulaymaanna ilaahay wuxuu leeyahy waasalnaa lahu cayna alqitr waxaanu u dhalaalinay baa la yidhi cayna alqitri nuxaasta ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات بل القرآن كوحة المامية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب